iyadoo maalmihii u dambeeyay duleedka magaalada Kismaayo ay ku dagaalamayeen laba beelood oo walaalo ah isla markaasina dagaaladaasi ay ku geeriyoodeen dad badan oo shacab ah oo ka soo kala jeeda labadaasi beelood ayaa maanta waxa baaqna weed u diray beelahaasi walaalaha ah ee dirirtu u dhaxayso ugaaska guud ee beelaha sida Daarood ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi ugu horay ugaaska ayaa tacsi u diray dadkii ku geeriyooday dagaalkaasi isagoo ugu baaqay in labadaasi beelood dhiigga ay daadinayaan ay joojiyaan wixii khilaaf ahna ay wada hadal ku dhameeyaan. waxaan tacsi u dirayaa dhammaanba intii dhimatay oo naga baxday oo arintaas ayada ah oo aan haboonayn runtii nooga baxday waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryahayaa jannadii in alla ka waraabiyo inta ka sokowna qoysaskii iyo eheladii ay ka tageenna in ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo intii ku dhaawacantay iyo intii dib uu ku gaaray hanti iyo nafba intabana ilaahay waxaan ka baryahayaa inuu u boogadhayo oo caafimaad haboon ilaahay uu siiyo waxaa maantay aan jeclahay inaan runtii inaan baaq ballaaran inaan u diro dadka walaalaha ah oo maalmahaanu dhibka ku dhex maray iyo dagaalka uu ku dhex maray Kismaayo dusheeda dadkaas asaga ah oo run ahaantii dad walaal ah wada dega ay ka dhaxayso ehelnimo iyo dagaan intaba dhaqanka Soomaaliyeed reer Jubbaland anigoo afkooda ku hadlahayo marka ugu horeeyo in arintaas ayada ah si wada jir ah loogu istaago loona joojiyo dhigaas daadanayo oo soo noqnoqday maalmaha kan sidoo kaleeto waxaan leeyahay ayaguna culamaa u diinka Jubbaland oo aan hubo inay yihiin dad isku xiran oo culimo ah oo ka shaqeeya midnimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed iyo tan Jubbalandba inay ayaguna siday horeyba ugu dhex jireen hawshaas ayada ah inay u istaagaan oo dadkaasi sidii loo kala badbaadin lahaa loo istaago. ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi ugaaska guud ee beelaha sida Daarood ayaa dawladda federaalka Soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo culimada Soomaaliyeed ugu baaqay in la dhex galo labadaasi beelood walaalaha ah isla markaasina la baajiyo dhiigga Soomaaliyeed ee daadanaya. dawladda Soomaaliyeed dawladda federaalka ah waxaan aad iyo aad anaga codsanayaa ayadoo Jubbaland xaaladda maanta ay ku jirto ay la socdaan oo si fiican ay ula socdaan in dadkaasi maanta ay sidii loo kala badbaadin lahaa loo dhayi lahaa wixii gaaray wixii hadduu Ilaahay ku suma ogol yahay lumay waa lumeen wixii kale ta sidii loo daawa qaban lahaa inay arintaas ayada aana u istaagto dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeedna waa ka codsanayaa arintaas ayada ah in sida ugu dhaqsaha badan inay arintaas ayada inay wax uga qabato ayadoo xaaladda maanta aynu ku jirno reer Jubbaland ay ku jirto ay aad iyo aad ay ula socdaan dawladdana intaas ayada ah yaan ka codsan lahaa. Maxamed Cabdi Bariye dalka TV Muqdisho.